maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka ummaxayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka ummaxayne mugdigii ka maydhay. bismi illaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardayay. waa macal mustafa cabdulaahi cabdilqaadir macalin jiheeye oo idinka soo jeedin doona maadadii xisaab tahayd tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo raadiyo hargeysa. ardayga jabtarkeen maanta insha allah dhigan doonaa waa jabtarkeen inoo socday ee complex numberska gaar ahaan casharkaynu maanta dhiganayna waa casharkiisii janaad ee complex numberska. hore waxaynu soo dhiganay qeyb ka horeysay oo casharkii afraad ahaa. casharka afraad ee hore waxaynu kusoo dhiganay operations of complex number. goormo ayaynu laba complex number isku geyn karaa in rectangular form u qoran. kow waxaa kaloo aynu soo aragnay goormo ayaynu kala jari karaa, goormo ayaynu isku dhufan karaa, goormo ayaynu laba complex number oo rectangular form isku qaybin karaa. waxaa kaloo aynu casharkaa kusoo aragnay casharkii ka horreeyey lesson 4ka in solving quadratic equations with imaginary roots. see loo solve garaya quadratic equations with imaginary rootska. insha allah casharkan maanta inoo bixi doono waxaynu ku dhigan doonaa rectangular form in complex number. ardayo baladeeg rectangular form of complex number waa halkii casharkii inoogu dambeysay inoogu joogtay ayaan insha allah kasii wadi doonaa. The complex number can be expressed in the form of a plus bi. A means real part, bi means imaginary part, where a and b the real numbers. A iyo b marka caadi ahaan laga hadlayo waa real numbers, tirooyin maangal ah. The complex number is said to be in rectangular form. qaabka markay u taalo complex number keenu a plus bi ayaa waxaa loo yaqaanaba ardayo lagu yidhi in rectangular form of the complex number. Sometimes the rectangular form is written as ordered pairs. complex numberka ardayga waxaa loo qoraa in rectangular form qaab kale ayaa loo qori karaa oo la yidhaaho ordered pairs. maxaa loo jeedaa ordered pairs? markaynu ardayga cartesian coordinateska aynu haysanno dhidibka hoose ee jiifo waxaa loo yaqaana ardayga to graph a complex number. dhidibka hoose ardayga waxaa loo yaqaanaa x axis. maanta laga bilaabo inagu waxaynu naqaana markaynu complex numberka dhiganayno real axis baynu odhan doonaa. ka taagan ama vertical kale waxaynu odhan doonaa ardayga imaginary axis. waa y axis kaynaa weer u naqaanee. shaxankana waxaa loo yaqaana xy plane. haddaba markaynu qeybtii realka ayd u qaadano real axiska, qeybta b imaginarygana b aynu u qaadano y axiska, a iyo b halkay ku kulmayaan baan leenahay. halkaa a coma b ama si kalenu u dhigi karaa a plus bi maadaama one direction intaasoo unit ee horisonta loo dhaqaaqayo imise tallaabo ayaa sare loo dhaqaaqayaa waa b a iyo b ba halkaa isku yimid. halkaa ay ku kulmeen ee leydigaasi vertigiskaas ka soo baxay ayaa loo yaqaana ardayga coordinateskaas maanta wuxuu qoraya in rectangular form. To graph the complex number is rectangular form. The horizontal axis seen hore soo sheegnay real axis and the vertical axis is imaginary axis. bal hadda ardayga hadda u fiirso bal hadda pointka graph baynu soo qaadanaynaa. the point tusaale b on the graph at the right slide-keena wuxuu ka yaala at the below is the graph of complex number z equal 3 plus 4i. waxaa la yidhi sawir baa la yidhi in rectangular form ku sawir baa laygu yidhi cartesian coordinate ku sawir baa laygu yidhi 3 plus 4i. bal hadda eeg markaynu doonayna ardayo inaynu sawiro samuuradda ayaynu insha allah tegi doonaa. halka ardayo markaan joogo bal hadda waxaan soo qaadanayaa waxaan haysanaa ardayow this is y axis and this is x axis.
halkaa markaan maray ka waxaa loo yaqaanaa waa egas kaana ardaya waxaa loo yaqaanaa y kan markaa arday wuxuu noo noqonaya waa real axis baa la r of z real axis kan ardaya waxaa loo yaqaanaa m of z this is the imaginary axis markaynu complex numberkeena in rectangular yahay tusaale a plus b I waxaynu arday hore ku soo sheegnay in rectangular form la yidhaaho ama standard form baa la yidhaha eedu waxaynu sheegaynaa inta direction ee hoos loo dhaqaaqay intaas halkaas waa a sare imsaan kor u kacaya waa b halkaasna waa b halkay isugu yimaadeen waalkee halkaa isugu yimaadeen baynu kusoo sheegnay a comma b co-order pairs ama si kale aynu qori karaa waxaynu odhan karnaa a plus b I halkaa ardayo shaxankaa sawirmay ee halkaa ka soo baxay waxaa loo yaqaana waa rectangular form haddaba halkaa markaynu ardayo joogno halkan markay originka tahay tusaale hadda ka soo qaad halkanna point b baan ka soo qaadanaynaa point b waa any point on the Cartesian plane waxaa jira waxa la idhaaho distance-ka u dhexeeya oo originka iyo point on the Cartesian plane is called baynu odhan doonaa line-kaasaan isku xidhi doonaa ardayo bal hadda halkaa u fiirso line-ka ardayo markaan isku xidho o b waxaynu u bixin doonaa modulus ama absolute value baynu u bixin doonaa waa r hadda ardayo halkaa u fiirso distance from O to B the distance from O to B is called baan odhanaynaa the distance between O to B is called absolute value of z complex number keenan in rectangular formka absolute-kiisa absolute value maxaa loo jeedaa waa distance from O B ama si kale hadaynu sheegno magnitude-na waa laydhaa normna waa laydhaa ma markaynu factors ahaan isticmaalayno waxaa kaloo ardayoo loo yaqaana distance-ka O B inta magacee loo yaqaano modulusna waa laydhaa argument modulusna waa laydhaa hadda halkaa u fiirso sidaynu markaa moduluska ku soo saari doonaaban insha allah baran doonaa ama absolute value of z waxaa kaloo aynu halkaa naqaanaa waxaa jira line-ka O B iyo real axis-ka ama egas axis-ka angle baa ardaya u dhexeeya halka angle between angle baa u dhexeeya real axis-ka ama positive egas axis-ka ama iyo line-ka O B loo yaqaano angle-ka halkaa ka soo baxana waxaa loo yaqaana argument baa la yidhaha ama angle between the real axis and line O B and line O B halkan maxaa loo yaqaanaa bolar baa la yidhaha bolar halkaasi bolar waa cidhif baa la yidhaha sidee lagu soo saaraa markaa moduluska iyo sidee lagu soo saaraa argumentka insha allah bal halkan inaan isna ku sharixi doonaa markaynu r doonayno distance-ka u dhexeeya from O to B halkaa arday waxaa ka soo baxay shaxan ka soo baxay waa right angle triangle waxaynu adeegsanaynaa Pythagoras theorem sideen ku soo saarana marka r waxaa lagu helaa baan ardayo leenahay r waa distance from O B waxaa lagu helaa absolute value of z absolute value of z z maxay ardayo u dhigneed baan leenahay waxa u dhigan tahay a plus b I halkaa soo dhex geli markaa r ardayo waxa u dhigan tahay markaa absolute value of a plus b I maxaan sameeyey ardayo balada halkaa u fiirso halkii sadha waxaan soo dhigtay equation-kii loo yaqaano a plus b I haddaba absolute-kaasi muxuu sheegayaa baan leeyahay wuxuu ardayo sheegayaa masaafada u dhaxaysa from origin to any point on the Cartesian plane to any point of the Cartesian plane buu sheegayaa maxaa lagu soo saaraa we can use it by using Pythagoras theorem maxaynu odhanaynaa eeda ayaynu square garaynaynaa plus baynu bda ayaynu square garaynaynaa halkaa markaan ardayo maraya square root-ka ayaan ka saari doonaa square root-ka ayaan ka saari doonaa waxaa lagu soo saara qaacidadaas markaa waxayna siinaysaa masaafada u dhaxaysa o up to b o to b masaafada u dhaxaysa o to b waxaa kaloo eegi doonaa halkaa haddaba halkaa markaan joogo ayda lama qaadanayo ardayo eedaa la square garayn baan ku idhi bdana waa la square garaynayaa b I baa la socota ayda lama qaadanayo square root-ka ayaan ka saari doonaa maxaa loo yaqaana markaa qaacidada waa markaynu doonayno absolute value of z lagudhaa soo saar ama modulusna waa laydhaa ama normna waa laydhaa ama lengthna waa laydhaa bal hadda ardayo halkaa u fiirso sideen ku soo saaraya angalkan waxaan ku soo saaraya intaa horta halkaa markaynu joogno waxaynu insha allah tegi doonaa tusaale ayaan ka shaqayn doonaa bal hadda waxaa laygu idhi intaa definition-ka waan haynaa sawirkiina waa ka halkaa inoogu yaal halkaasaan ku sharaxnay the absolute value or the length of the hypotenuse of the complex number z equal a plus b I is absolute value calaamada labada liid waxay sheegayaan ardayo absolute a plus b I waxay u dhigan tahay baan idhi square root of a squared plus b squared let's go our example bal hadda tusaalaheena ayaynu eegi doonaa lixaad ee buuggeena pageka waxaad tegi doontaa ardayo 238 tusaalaheena ku yaala ee example 6 example-ka arday wuxuu odhanayaa example 6 page-ka tegi doontaa waxa weeyaan 2
3 7 ayaan insha Allah ka tagi doonaa maxaa ardayo la yiri find the length r of the complex number z equal minus 2 plus 5i kadibna markaad soo saarto magnitude-kiisa ama length-kiisa aan plot kadibna plot gareebaa plot means maxaa loo jeedaa sawir baa leeyahay bal ardayo halkan ina mari aan ka shaqeynaa haddaba saanu furfureeg waxaad samaynaysaa marka hore laba su'aalood baa layna weydiiyay ardayo halka markaan joogo su'aasha si aan uga shaqeyno waxaad tagaysaa baan ku page-ka 238 tusaalaha ku yaala 238 tusaalaha ku yaala tagi doonta example 6 na weeyaan find the length r waa loo yaqaan of the complex number z equal 2 minus 5i and then plot baa layidhi bal hadda halkaa markaan joogo marka hore solution baa leeyahay waxaan soo qaadanayaa complex numberkeeni z equal baan leeyahay minus 2 plus 5i dherarka factorkaas samaynaya ama complex numberkaas soo saar baa leeyahay r waxaa lagu helaa baan leenahay magnitude of this one minus 2 plus 5i calaamadaas waxay sheegaysaa labada liidan jeexay magnitude-kay sheegaysaa maxaa loo jeedaa baan leeyahay square root baan ardayo dhigaynaa minus 2 ayaan laba jibaaraynaa minus 2 squared baan leeyahay plus baan leeyahay 5 ayaan laba jibaarayna square 5 ayaan square garaynayaa r ardayo waxa uu dhigan tahay square root of this minus 2 laba jibaar ardayo minus 2 power 2 waa 4 plus baan leeyahay plus 5 laba jibaar 25 baan leeyahay halka ardayo maxaa ka soo baxay baan leeyahay bartaa markaan marinayo square root baan ardayo u dhigayaa 25 baalka inoo soo baxay 29 maadaama 4 iyo 9 5 la isku geeyna waa 9 unit bal hadaan sawir haddaba waaxda uu tagi doono markaan dhiganayno Cartesian plane-ka soo qaadanayna ardayo waxaad leedahay kan maxaynu qaadanayna waa x minus 2 ga waxaynu qaadanayna waa x axis-ka 5y dana waxaynu qaadanayna 5i dana waa y dana qaadanayna keeba positive baan leeyahay labada marka halka jooga x-ta ayaa maynaysa y dana waa positive waaxdu ku dhacayaa baan leeyahay markaan Cartesian plane-ka aan haysto waaxda labaad baan tagayaa halkan waxaan tagayaa minus 2 baan laba unit baan xaggan u dhaqaaqaya xagga x-ta ay ka negative ka tahay baan leeyahay ardayo xagga y positive ka tahayna mise unit baan kor u kacayaa baan leeyahay how many units can I go up waxaan u kacayaa 5 units 1 2 3 4 5 ardayda raadiyaha iga dhageysanaya kulay ma arkayaan shaashada ma arkayaan marka waxaan leeyahay xagga negative-ka x-ta ayaa laba talaabo ugu dhaqaaqo xagga maadaama minus 2 aan haysto real keeni y-dana 5 talaabo ayaan xagga y-da kor u kacaya xagga positive-ka y-du ay tahay halkay ka kulmayaan baan leeyahay labada qiimo waxay ku kulmayaan baan leeyahay halkay ku kulmaan baa loo yaqaan ordinary pairs ama Cartesian coordinate shaxanka samaysmay hadda halkaa waxaa ka soo baxay markaan labada barood daba isku xidho point baan halkaa samaynaynaa point-keenaasi wuxuu dhigayaa maxaan hore kuu soo sheegay masaafada u dhaxaysa origin ka any point on the Cartesian plane point-kaas marka arday wuxuu noqonayaa minus 2,5 labadaas line-kaasaan isku xidhaya marka origin-ka iyo point-ka masaafadiisu arday waa maxay baan halkaa leenahay marka masaafadiisu waa waxa weeyaan radical 29 su'aashaas ayaynu saasaynu ka shaqeynay halka dherarkaas arday waxa weeyaan masaafadaas waa r oo u dhigan radical 29 baladeeg this is the factor ama complex number kaas halka ka soo baxay sawirkiisuna waa ka ardayo labadii su'aalood baan ka jawaabaan jecelahay inaad la socotaan malayn marka hore waxaan soo saaray yar khulaaseeyo langadkii baan soo saaray ama modulus wax la yiraahdo imtixaanka oo kale arday su'aalo laga weydiin kara waxa weeyaan find the length waa lagu oran karaa find the modulus waa lagu oran karaa find the hypotenuse waa lagu oran karaa su'aalaha jawaabeedu marka waa in isku jawaab ayaynu ka shaqeyn doonaa isku procedure baa la raaci doonaa haddii rabbi qadaro waay bal hadda tusaale buugga aan ku olin baan ku kaabi doonaa tusaale buuggeena ardayo waa extra example concerned about how to find the length ama the absolute value of complex number ama the moduluska ama hypotenuska and so many other things baa loo yaqaana extra example baan insha Allah qaban doonaa extra example muxuu oranayaa ardayo waan ku adkeynayaa kii hore find baa leeyahay waxaad soo saartaa find the modulus kelmadda modulus baan isticmaalay of the complex number tusaalaheeni buugga inoogu yaala muxuu qorayaa halkaas length buu isticmaalay length kana waxaan isticmaalay modulus baan isticmaalay z equal waxa u dhigan tahay
6 plus 8i bal hadda eeg soo saar baa laygu yihi su-aasha modalaska waa extra example concerned about our topic waay maxaynu ku helaynaa baan leen r waxay u dhigan tahay baan leen markaan ka shaqaynayno waxaan leenahay square root baan soo qaadanayna mar haddii modalas ay tahay waxaan leeyahay a squared plus b squared where's a and where's b real partka ayaa aya imaginary partka numberka ka horeeya coefficientkiisuna ayda ka horeeya waa b halkaa markaan taagana waxaan leenahay square root waxay u dhigan tahay 6 squared plus baan lay ardayo leeyahay halkaa haddaba halku fiirso 8ka ayaan ardayo square garaynaya 8 squared baan leeyahay halkaa ardayo maxaa ka soo baxay square root squared 6 square garay ardayo 6 power 2 36 baan leeyahay plus baan ardayo halkaa leeyahay haddaba fiirso 8 square garay ardayo 8 square garay waxa weeyaan 4 halkaa markaan joogoon isku wada geeyo maxaa soo baxay ardayo square rootka hayloowin 36 plus 64 ardayo maxaa soo baxay 100 square root of 100 waa maxay waxaa soo baxay ardayo halkaa 10 baa soo baxay 10 units baan leeyahay dhararka factorkaasi ama complex numberkaasi waa from o to any point on this point waxa weeyaan 10 units baan ardayo halkaa leena waay bal insha Allah waxaan u tegi doonaa intaas waxaan u maleynayaa ardaygu inaad la fahantay sidee loo soo saaraa modalaska ama waxa la yiraahdaa lengthka ama hypotenuse of complex number haddii complex number u qoran rectangular form sidee loogu soo saaraa insha Allah waxaan dareemayaa inaad la socotid oo fahantay haddii insha Allah aanad fahmin waad yara khulaasayn doontaa haddii rabbi qadaro waay bal waxaan u gudbi doonaa buugaaga ayaa tegi doontaa ardayow buugaaga ayaa tegi doontaa qodobka 5.5 ee objectiveskii 10kii koowaad aynu kusoo xusnaya complex number in polar form waxaan insha Allah sameyn doonaa complex number in polar form imika waxaan soo baranay sidee modalaska lagu soo saaraa waxaan insha Allah eegi doonaa bal isku bedelida rectangular formka iyo complex iyo polar formka bal waxaan soo qaadan doonaa haddii rabbi qadaro waa maxay polar form baan horta ka jawaabi doonaa goorma ayaa complex numberkeena la yiraahdaa polar form bal hadda sawirkan aan soo qaadanayna ila tagalka sawirka waxaan insha Allah tegi doonaa Cartesian coordinate-keeni baan soo qaadanayna labadii dhidib kii taagnaa ee kii jiifay ani point baan ka taabanaya waaxda koowaad baan tegay point baan ka taabtay pointkaas waxaan leenahay halka pointkaan ka taabtay waa a comma b ama x comma y haddaba halkaa markaan joogo waxaan leeyahay polar baan samaynayaa waa originka waxaan isku xidhayaa pointkaas iyo originka ayaan isku xidhayaa pointka iyo originka ayaan isku xidhayaa halkaa horta marka hore waxaad ii haysataa sed waxay u dhigan tahay a plus b I baan leeyahay qaabka maxaa loo yaqaano markay complex numberkeenu yaallo rectangular form ama magaca kale loo yaqaano standard form labada kelmadood baa dayla fahan haddaba halkaa markaan joogo maxaan idhaa ardayow from o to b masaafada u dhaxaysa o to b maxaan ku soo sheegay tusaaleheenii koowaad iminkaan ka shaqaynayay waxaan ku soo sheegay r baan halkaa u bixinaya bal adeeg pointkaas maxaa kulmay laba barood baa laba value baa kulmay waa horizontal axis-ka iyo vertical axis-ku halka iska gooyeen ayuu halkaas ka soo baxay halka xagal 90 ka soo bixi doonta ardayow halku y axis-ka ama b-du ay ka dhacayso egasta ay kala kulmayso egastana waxa weeyaan a baynu qaadanay inagu halkaana b baynu qaadanay xagal baa u dhaxaysa baan ku o b iyo x positive x axis ama real axis-ka xagasha ardayo maxaan ku soo sheegay markii dhaweyd argument baan idhi ama angle between the OB and the x axis bal adeeg trigonometry functionska baan dib ardayo ugu noqonaya maadaama aan rectangular form u bedelayo polar form maxaan markaa leenahay waxaan tegaynaa triangle-kana dib ugu noqonaya waxaan dib u xasuusanayaa trigonometry-ga aynu hore soo dhiganay chapter-keennii koowaad ee form 4ka waxaan kelmad saddex shay baan isticmaali doonaa basic trigonometry functionska maxaa ka mid ah ardayo waa sin cosine tangent saddexdaas iyaan insha Allah ratio-dooda raadin doonaa maxaan odhanayaa ugu horreyn waxaan leeyahay sin baan isticmaalayaa kelmaddaad ardayo xasuusanaysaa waa maxay so ka to ereygaas wuxuu abbreviation u yahay ama uu soo gaabinayaa trigonometry ratioska sida lagu soo saaraado isticmaalay reference with this triangle ama this Cartesian coordinate way bal hadda sin baan tegay ardayo sin theta baan leeyahay sin theta waxa u dhigan tahay opposite waa b baan leeyahay opposite oodi waxa u taagan tahay opposite divide by hypotenuse ama shakaalka waxaynu Soomaaliga ku naqaanay waa r bay naga ugu taagan maanta halka markaan joogo b baan subject ardayo ka dhiganaya
b baan subject ka dhiganaya b waxay u dhigan tahay baan leeyahay b implies bdu waxayna siinaysaa r sin theta r sin theta halkaa waxaad ku haysataa sin theta ardayga waxa u dhignayd b over r b over r maxaan u jeedaa opposite of an angle angalkan acute angalka oppositekiisa oo loo qaybiyay hypotenuseka longest side of your triangle oo b aynu soo sheegnay distanceka u dhexeeya from o to b oo nidhi waa polar masaafadaas distancekaasi waxaan kaa doonaya haddana cos baan tegi doonaa cos theta ardayga maxay u dhigan tahay baan leeyahay cos theta ardayga waxay u dhigan tahay halkaa ila soco cos theta waxay u dhigan tahay adjacent eedu adjacent bay u taagan tahay waa a smaller divided by hypotenuse oo r halkaan ardayo e baan subject ka dhiganaya cross baan isku dhufanaya e waxay u dhigan tahay r cos theta bal adeeg tan baan haddana u baahanay tan theta ardayo maxay u dhigan tahay tan of an angle waxay u dhigan tahay opposite of this angle given angle oo loo qaybiyey adjacentka waa b divided by a hadda halkaa u fiirso waxaan doonayaa angalka markaan raadinayo angalka u dhexeeya o b iyo egas axiska waxaan ku soo saaraya inverse baan ardayo isticmaalaya markaa theta waxay u dhigan tahay baan leeyahay tan inverse ama tanna waa laydha isticmaalay b divided by a bda maxaan ku soo sheegnay waa real partka oo loo qaybiyay imaginary partka oo inverse-ka la saaray theta ardayo waxay u dhigan tahay tan inverse tan power minus 1 oo loo garan ogaya ama loogu dhawaaqo tan inverse bracket baad furi b divided by bda markaynu standard form keenaysa ama rectangular form bdu arday maxay noogu tahay real part bay noogu taagneed eeduna imaginary part waa markaan doonaya ardayga inaan soo saaro oon ku fahansiiyo angalka u dhexeeya egas axiska iyo lineka o b loo yaqaano balada eeg markaa maxaan doonaya inaan isku bedelo markaan doonaya haddaba in rectangular form aan u bedelo baladaal u fiirso e balas b ay ardayo maxaad haysatay rectangular form waxaan u bedelayaa polar form muxuu noqonayaa eedii maxaan ku bedelayaa balada eeg equationska halkan inoo yaalay eedii waxaan ku bedelayaa r cos theta halka ee taalo halkaa waxaan leeyahay waa r cos theta waa meesha ee taalo r cos theta ayaan ku bedelay balas baan dhigaynaa ayda inoo soo qaad bda la socota bdiina ardayo maxaan ku bedelaya equationka halkaa yaalla isna inoo soo qaad halkay b taalla inoogu bedel r sin theta bartaa markaan marayo maxaan ardayo samaynayaa eeda waxaan ku bedelay r cos theta bdana waxaan ku bedelay r sin theta maxay wadaagaan they have common factor bay wadaagaan dhinac walba r baa ku jirta r baan dibadda uga saarayaa waxaan halkaa ku helay markaa cos theta balas baan leenahay I sin theta maadaama rt aan dibadda uga wada saaray waxaan u soo gaabin karaa markaa r baan halkaa dhigaya coska waxaan ka soo qaadanayaa cdiisa balaska waan ka boodaya markaa aydana waan ku daba qabanaya coskii ardayo maxaan ka soo qaatay c haddee balaskii waan ka saaray meesha aydiina waan soo qaatay stana sinkana waxaan ka soo qaadanaya s laba angal baa markaa kala hayeen cosku angal buu lahaa sinkuna angal mid ahaan ka soo qaado maxaan u soo gaabiya markaa waxaa loo yaqaanaa arcus theta iyo haddaan isticmaalo sed waxay u dhigan tahay r bracket cos theta plus I sin theta ama arcus theta waxaa loo yaqaanaa markaa this is called polar form baa loo yaqaana markaa qaacidada aan daraaf garaynay ama magaca kale loo yaqaano maxay trigonometric formna waa laydhaa trigonometric formna arday waa laydhaa bal insha allah halkaasaynu xiisadda ku xigta insha allah waxaan ka sii bilaabi doonaa tusaalayaal ku saabsan isku bedelka boolarka iyo rectangularka insha allah bal hadda eeg haddii tusaalaha buuggiina yaalla aan soo qaadano tusaalaha buuggaaga ku yaala bejka 200 iyo waxaad tegi doontaa ardayow 230 tusaalaha 7 insha allah ayaa tegi doontaa tusaalaha 7 muxuu qorayaa baan leenahay example waxaa laygu yidhi 7 bejkaa tegi doontaa ardayo waxa weeyaan 230 waxaa la convert z equal 2 plus 2i in polar form waxaa la yidhi u bedel in polar form maxaa loo jeedaa in polar form ardayo waxaan leenahay maxaad haysataa baan leeyahay convert baa la yidhi z equal 2 plus 2i in polar form waxaan ardayo haystaa imika waxaan haystaa rectangular form I would like to convert
a polar form. How I can convert a polar form? Let's go. Ina mari solution baan leeyahay. Z waxaynu haysanaa 2 plus 2i. Marka hore ardayga waxaad soo saaraysaa horta maxaa loo baahan yahay inaad qaabkan u bedesho inaad qaabka u bedeshaa loo baahan r bracket cos theta plus I sin theta. halkaa markaan joogo waxaan doonayaa inaan intaa u bedelo z waxay u dhigan tahay r bracket cos theta plus I sin theta. marka hore ardayga waxaan soo saari doonaa r baan soo saari doonaa ugu horeyn modulaska ayaad la soo bixi doontaa. r maxaa lagu helaaban square root 2 squared baan leeyahay plus 2 gan square garayn doonaa plus 2 kala dan square garee labada 2 halkay ka yimaada real part ku waa 2 imaginary part ka coefficient kiisuna waa 2. r ardayga waxay u dhigan tahay radical 2 square garee waa 4 plus 4 2 gan square garee waa 4 2 gan kala waa square garee r maxay u dhigan tahay radical 8. waxaan insha Allah soo saari doonaa angalka theta soo saari doonaa r iyo theta ayaa loo baahay. theta ardayga waxaa lagu helaa tan inverse baan leeyahay. tan inverse waa b divided by a theta ardayga waxay u dhigan tahay tan inverse b di ardayga maxay noogu taagan tahay waa 2 a dina maxay u taagan tahay waa 2 maadaama labaduba ay isleegaadeen waxa la yiraahdaa realka iyo imaginary waa isleegaadaan xagasha halka ka soo baxda waxaynu oranaynaa tan inverse of 1 goormu tan kuwan haabaan leenahay theta waxaynu u dhiganaynaa waa 45 in degrees or baan oran karaa by divided by 4 in radians balada in radians baladaan isku soo gabagabeeyna halkaasi waxaan sameynaynaa su'aashii leeyna weydiiyay ayaan insha Allah ku soo gabagabeynayaa oo maxaa la yiri polar form u bedel therefore baan leeyahay the polar form of this complex number z equal 2 plus 2i is baan leenahay z equal halkii ardayo maxaan r helay waa radical 8 baan haystaa radical 8 baan leeyahay halkii r waxaan haystaa radical 8 bracket baan furaya ardayo halkii cos theta ardayo maxaan haystaa 45 cos theta waxaan haystaa ardayo 45 plus baan leeyahay 45 degree plus baan leeyahay I sin 45 degree ama si kala u qori kartaa waxaan rabaa radical 8 bracket cos pi over 4 plus I sin pi over 4. haddii aan soo koobo oon conclude gareeyo habkii gaabnaa maxaan kugu soo sheegay waxaan u saar radical 8 kiss baad dhiga halka kiss maxaan soo gaabiyay cos theta plus I sin theta cos theta theta markaa waa pi over 4. insha Allah salaam ku xiga ayaan insha Allah halka ka sii wada doonaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin wacaneed ii dhageysateen ila socoteen radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cashar ku xiga wabillahi tawfiiq iyo halkaasaan ka sii wada doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay